madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar oo gabadhaclaynaya ayay warbaahinta dibadda ee Itoobiyan ku tabinaysaa inuu taageersan yahay Soomaaliya marka laga hadlayo heshiiskii badda ee ay dhawaantan Itoobiya iyo Somaliland kala saxiixdeen iyagoo daliishanaya inuu Mustafa Cagjar arrintaas khadka taleefanka kagala hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ugana cudur daartay soo dhaweyntii Muuse Biixi oo uu ku sheegay in lagu khasbay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayuu Mustafa Cagjar ku tilmaamay inuu sanka kaga tolay qaabilaadda madaxweyne Biixi balse waxay warbaahintu tibaaxday inuu u hoosgeliyay oo si uu Soomaaliya u tuso inuu ka xun yahay uu jaakad iyo koofiyad buluuga soo xidhay taasoo warbaahintu qeexday inuu ra'iisul wasaare Xamse taleefanka kula wadaagay munaasabadii qaabilaadda ayuu Mustafa Cagjar u sheegay ra'iisul wasaare Xamse sida ay warbaahinta Itoobiya ee madaxa banaani shaacisay in kooxaha fanka ee deegaanku ku soo dhaweeyeen madaxweyne Biixi muusigii heesaha wadaniga halganka iyo xornimadoonka ee Soomaaliya oo ay ugu horeysay heestii calanka Soomaaliya ee Soomaaliya tooso iyadoo waxan oo dhan laga qariyay warbaahinta Soomaalida ee labada dhinac Mustafana ku sheegay inuu ku bahdilayay Muuse Biixi iyo laantiisa kuna weyneynayay Soomaaliya warbaahintan Itoobiya oo aad ugu dheeraatay Mustafa Cagjar ayaa soo qaadatay inuu xiriir toos ah la lahaa kooxdii nabad iyo nolol ee Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ee aan qushay isla markaana ay dana gaar ah oo ka dhana Itoobiya ka wada shaqayn jireen sababta uu calanka deegaanka u bedelay ayay soo qaateen inuu u ekaysiinayay calanka Soomaaliya oo uu xidigta iyo buluuga kala mid dhigayay isagoo ka guuray ayay dhaheen huruudii uu Itoobiya uga ekaa iyo hashi calaamadda u ahayd aqlabiyadda Soomaalida Itoobiya waxay warbaahintan dalka dibadiisa laga leeyahay ee madaxa banaan kuna baxda luuqadda Axmaariga xogtan ku soo xidhay in Mustafa laga warhayo oo xaqiiqiyan la og yahay dhinaca uu yahay laakiin uu gabadhaclaynayo dhexdana taagan yahay oo hasha labada geel jecel iyo beerka jecel xaydha jecel ku sifaysan yahay waxaase aqli yaraan ah inuu wali u haysto inaan laga warqabin xogtan ayaa waxa dhacda sida ay siyaasiyiin badani sheegayaan inay tahay mid uu isagu u dusiyay warbaahintan oo kharash ku bixiyay si uu madaxa ugala jaaso Soomaaliya qoobkana ugala ciyaaray Itoobiya